Somaliland degan waxaan leeyahay Ilaahay barya abaaraha inuu Ilaahay naga soo jabiyo abaara baan baa ka jira dalka khaasatan gobolka Awdal degmada lagu haya eeriyada iyadoo dadkuna ay gabaabsi waliba biyaha halkay u doonanayaan ee aad u adag tahay maalmo dhaweedan soo maray meelaha qaar kood sida goonay gaarkeeda marka waxaan leeyahay insha Allah Ilaahay aan barino bili aadan la baryaay waxba inoo soo sido waxa ugu fiican gacanta Ilaahay ee nirgin karta maanta waa arkaysaa roobku waa darooraya oo kuleyl baa jira inta hadan kaga gudbo maanta bishu waxa weeyaan bishii labaad 12 2018 ilaa intii doorashada aynu ka baxnay hadii aan ahay madaxda xisbiga cid gobolka Awdal waa shirki jira idin kaga hadalno anagoo dib u eegaynay oo ka dul sugaynay in xukuumadda cusub ee talada Muuse Biixi Cabdi garwadeenka ka yahay sida uu arrimihiisa siyaasadeed u qabto ama uu guto waajibaadkiisa loo igmaday in ummadda cadaalad u kala sooro waxaan ka dul sugaynay intaas maanta ay bishu tahay labadii bishii 11 bishii labaad ilaa maalintii loo dhaariyay Muuse Biixi Cabdi waxa uu talada dalka gacanta ku hayaa 62 cisho 62 ka cisho boqolkii cisho wax yar baa uga dhiman intii ugu badneed uu fadhiya haddaba waxa meesha isweydiin leh Muuse miyuu ka garnaqay gobolada Somaliland gobolada waliba darafiyada miyuu ka garnaqay dadkii tabashadii ay tabanayeen cadaalad darradii xukuumadii hore laga tabanayay iyo xukuumadii ka sii horeeyay ee laga tabanayay miyuu ka garnaqay mise waa uu ku sii tuntay oo xaqoodii u dulmiyay maanta Somaliland waxa uu magacaabay 39 digreeto ayuu Muuse Biixi Cabdi magacaabay intuu dalka talada dalka hayo gobolkan Awdal marka loo eego 39 ka digreeto ee uu ka magacaabay waxa Awdal marka la isku geeyo abtiyaaladay iyo beesha Gadabursi iyo beesha Ciise waxa uu siiyay afar wasiir ku xigeenna malihin agaasimayaal iska daa intaasoo laga dul sugayay aan ka dul sugayneen eegaynay tooshka uma ku yifinayay Muuse Biixi Cabdi hadaba markii uu la galayay waxa kamid ah hadaladiisi waxbaan hagaajinaya waxbaan qabanaya waxbaan eegaya waxaan leeyahay de kulli wataciyaha udun waaciya de kulli dhagi Ilaahay waaniya waasanay de waa kuwii ka horeeyay oo dariiqoodii meel adag ka sii maray isaguna waxaan leeyahay hadaba 62 ka cisho qabtay Muuse sidoo ku yahay arrimaha dibadda waad arkaysaan maalintii talada dalka oo la wareegay waxa uu tagay safarkiisii koob Ethiopia Djibouti Ethiopia isku soo maray kadib maxaa meesha hadaba jira maanta wasiirka arrimaha dibadda Somaliland waxay noqotay fadhiid dibi aan hooyo lahayn waxay noqotay iyadoo dhaliilo badan la tirsanayo oo gobolka Awdal tirsanayo ayaa arkaysa hadaba arrimihii dibaddana ka gabaabsinay marka waxaan leeyahay Muuse de wixii laga filiyay ee lagu doortay ee Allah ku gashay wali laga ma hadii aan nahay xisbiga wicid anagu waxaan nahay muraayadii dadka ku iftiiminaysay in aad moogtahay talada dalka si wanaagsan u maamusho maanta marka waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi 62 ka cisho fadhiyo gobolka Awdal afar wasiir bay kaga yeesheen haddaba 5 sano soo socoto maxay Muuse Biixi Cabdi talada dalka uu gobolka Awdal ma intaas ku dayn doonaa mise saami qaybsigii odayada beesha Gadabursi qoreen ayaan islaahay waxba ka qabanayaa ma intii hore u yimiday isaguna waxaan leeyahay hadii aan nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid madaxdiisa gobolka Awdal joogtay waxaan leenahay Muuse de hore lagu arkay de inay afka ka ahayd qalbiga ka ahayn waa la ogaa dadka qaarkood wali kaama ahaan leey runna kama sheegaysid qalinkaagu wuxuu qorayaa tahay Muuse ee matiid waxaad ololaha ku gashay ee dadka ugu baaqaysay ee codka ku rabtay matiid baan leenahay Muuse ee waxaad noqotay qalinkaaga maanta waxaad madaxtooyada kaga soo dhagax magacawda ee dadka ku soo ogimatay afarta wasiir beesha Gadabursi aad siisay iyo saddex wasiir beesha Gadabursi iyo midka abtiyaalada aad siisay waxaan leeyahay wartay taasi kama gayaan gobolkii buu hoodle ee moogtahay walaalaha ayaga darafyada aynu deganahayna iyaguna waa nala mid
haddaba Soomaaliland saami qaybsigeedii ma beesha dhexe oo kaliya leh haddii haddaba beesha dhexe kaliya leedahay dee waa la isku soo jeesanayo dee talada dalka haddii la midayn waayo cadaalad loo xaqsoori waayo waa la tashani ummaddu way tashani dhalinyar aqoon-yahana maanta sare kacday sidii hore maaha dalku waxaan leeyahay madaxtooyada Soomaaliland haddii cadaalad ay ku soori weydo talada dalka وموسى بيح عبد وليبة ثلاثة دلك وكسور وعدالة وعدالة دردا سيوضو وحلينا أنو مالك استتوش وقبرينا كتشوك بينو لينا وأنا كوجو افتيمينا وليبة ماسقين ما أنت هو سيبه نينك استبه هالكي وجوجي يقول وضو بيرسون نينك استوى سي بيرسون غير كود قال أنا وقتك قرتون مركب وحليه والروي دماتي ترحانتي دور الشدوي دماتي ummadda inaad isku keentood gacmaha isku saarto oo walaala ka dhigayso midayso yaa lagaaga fadhiyay laguma dooran hargeyso kaliya sidoo ka dhawaajay musharaxayaga xisbiga Ucud injineer Faysal Ali Xuseen taa xukuumadda Burca dhaafsiisanayn deegabileyna soo dhaafimaysan u maleynaya halkan kalena marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay Muuse Biixi Cabdi 62 ka cisho fadhiyo inay noqoto 62 cisho taariikhda u gashay inuu beesha dhexe uun sadbursiga u sii beeriyo u beelaha darafyadana وحبا وقبن واي marka waxaan hadalkay ku soo gabagabeynaya baldigirooyinka dambe ee soo socdaay barasaabiyadiina aragnay barasaabka cusub waa soo dhaweynaya waxaan leeyahay ilaahay xilka ku igmaday lagu igmaday ilaahay kugu asturo xilku wax lagu farxan ma aha waxaan leeyahay hadii aad noqoto nin wanaagsan waan ku sheegaynaa hadaan xisbiga Ucud hadaan nin xun noqotana waan ku iftiiminayna oo tooshan kugu qabanayna waxaan leenahay de ragii hore saan ugu iftiimin jirnaa ugu iftiimin jirnaa waana ku soo dhaweynayna hadaan nahay saraakiisha xisbiga adiguna waxaan leenahay dadka la shaqeey kii horena waan sii sabootiyayna de kullay de waxa la yiraahdaa maxay tagay xumaan lagu sabootiyay waan ku sabootiyayna leenahay gaaxnuugna marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa 62 ka cisho aragnay de biyaad horaantooda aragtay gadaashooda maxay noqon doonaan baa leenahay waana ka bulshadeenna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh su'aalka hadan ka weydiiyay xagga degmada Boorama waxa jira cashuuro la kordhiyo maayarka degmada Boorama ku kordhiya ganacsatada bacalayaasha shirkadaha biyaha soo saara biyaha filtraysan shalay buuqda ku sameeyeen dawladda hoose arrimaha degmada ka socda maxaad kala socotaa horta waan arkayo degmada Boorama kaliya maaha waxa lagu kordhiyay Soomaaliland oo dhanba cashuurtii lagu kordhiyay jagadii 15 mitir ahayd baa lacag inta leeg lagu kordhiyay baabuurkii lagu cashuuri jiray $15 baa $20 laga dhigay cashuurtii Soomaaliland oo la kordhiyay dhaqaaluhu de income-kii moogtahay sixir bararku uu sii socdaawne wax dhulka yaalay ma jiro waxaan rajaynaynaa in xukuumadda cusub waxa uu saartay guddiba uu saartay inay wax kordhiso uguma tala gelin uma kamaan dur sugaynay waxaan maanta aragnay in waxa uu la sii biiriyay inuu cashuuriga la sii kordhiyo ummadda xagga masaakiinta lagu dalacay laakiin sidee qolada lacag leeyahay ama wasiirada ama dawladda ku jirtay aan iyaga waxba laga qaadin oo aan uu qaban xeer kuma qaban ama uu qaban sharci kuma qaban oo sharciga ka weeyeen masaakiinta baa sharcigu qabtay ka baahan uu waliba qabtaa waxaan leeyahay insha Allah taala de xukuumad cadaalad dhalanaysan islahayn hadii ay noqoto xukuumadda turxaantii iyo dhibaatooyinkii agardaamooyinkii jiray ee Allah la galay haduu sii soconayna de waa taa maanta adarkaysa ee cashuurihiisii kordhinaysa dadka waxaan leenahay shaqo abuur in loo sameeyo ayaad ballan qaaday in sixir bararka laga soo celiyo oo dadka wixii la shay kastaba qiimihiisa lagu gooyo lagu jaangooyo ballan qaaday maantana waxaan arkaynaa inaad sixir bararkii uu sii laabtay